qadda deeqa oo dhan $3,200 ayaa la soo gaarsiiyay dhismaha masjid jaamaca magaalada Welweli deeqdan oo ay ugu soo tabaruceen masaajidka xubno qurba jooga oo ka soo jeeda deegaankan Welweli kuna sugan Denmark ayaa deeqdan waxa ay u soo wakiisheen inuu masaajidka gaarsiiyo Ismaaciil oo isna ku wareejinayay deeqdaasi علماء أودينك ديغان كيو قدق قعنتا كو هايسا مساجدك يغو انتاسي كبعدنا علماء هالكاسي اوغا مهاد عليسي اوغانا دعايسي حبناهاسي قربة جوغتا ديغداسي سوغارتي مسجدك يو حبني يوري هادا كوهر بلبحي ديغ نوعا اوكلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هالكا وحان كسو قدبين يا لعاق تريد دان tahay $3,200 oo ay soo wakiisheen walaalahayga islaamka ee degmada reer Welweli ka jooga qurba joogan Denmark dadkaas oo ay magacyadoodu kala yihiin Zeynab Yuusuf Abakor $1 Aanab Yuusuf Abakor $1 Faadimo Cabdi Hiirad iyo Cabdirasaaq Nuur Axmed $700 Abdullaahi Nuur Axmed $350 Cali Cismaan Yuusuf Cali Madoobe $150 lacagta oo isku dhan $3,200 oo aan wakiilku inaan ugu wareejo gudida masaajidka dhisaysa iyo culimada masaajidka degmada Welweli dhisaysa waxaan iga gudoonta faliyatafadal $3,200 جزاكم الله خير الجزاء إلهي سبحانه وتعالى أبال مرين هاي ينكو أبال قدو والله لو يحي وناقي أدوني سال لما تحبكم والله لو عيشي وترضاها أذكرها لتهين إن إلهي سبحانه وتعالى هاي إلهي أويدنكم أبال مريو جنو أي أبو قالسا إلهي جنة الفردوساء إنه إلهي جنو ينكيسا وصرية إذن قارسيو آخرنا أمارتي نمعو إذن سيئة أدون كان أويدن كبر واقعيو دد إيه دنيا بأويدن مقرأي عافمات إيو أبط إيو وحالله لو يكون أدون إسان إن إلهي سبحانه وتعالى أويدن سيئة بدل كذا أويدن سيئة وهلسان إن شاء الله تعالى ورمتي وعاكلو يضنا أنا مرنا بإله وكرين تضيوغي هوري يونا نسوق عرسي إنتي أنا باقل قد بني العقاها صادري sida gabadh magaceeda tiri hal qariyo oo iyaduna $500 noo soo dirtay gabadhana waxaan u weydiinaynaa Ilaahay khayr iyo barwaaqo ayaan aqriyo adduunba u weydiin doonaa wanaagsan hadii jaariyad kasta ay isu soo xilqaanto waxa weeyaan uu dhamaanaya dhaqsano uu dhamaanaya dadka gudahana wuu wada hawshi wuu wada heerkaas ay soo gaarsiiyeen heerka imika masaajidkeedii ka muuqda dadka gudaha inta badan soo gaarsiiyay dadka dibadda aan asaas kala ugu baaqaynaa waxaanu leenahay walaalayaal waa masaajidka wixii aad gashataa wax ka lumaya maaha bangiga Ilaahay bay ku galayaan si kastaba culima awdiinka deegaanka iyo gudiga gacanta ku haysa masjidka ayaa ka marakacay in xaaladiisu imika ay maraso meel haboon isla markaana loo baahan yahay walaalaha muslimiinta ah iyo dadka deegaanka dal iyo dibadba in ay si buuxda uga qayb qaataan dhamaystirka masaajidka Abdi Rasom TV degmada Welweli